السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يا صاحبي هل كان نجد داونا يسوى يوتيوب channel كوريا عطوشري فضلا هدي عن نقول عصبتها أو أيتا بوقشة دي وهريسي ريح جنبالك سبسكرايب لايك شير صار داوشة إيكم تيجنا وحقينا waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka falanqeynta ciyaaraha oo maanta aan ku soo qaadan doono sheekooyin aad u xiiso badan. maanta waxa ila jooga Sharmarke Saalax Arteta waxaan soo dhaweynayaa saaxiibkay Sharmarke ku soo dhawo YouTube channel Korea Atoshare. ما شاء الله وكدواي وريا Atoshare channel kaaga aad iyo aad u faraxsanahay. Arteta adigana ku soo dhawo YouTube channel Korea Atoshare. ما شاء الله والله وكدواي channel وريا Atoshare أصحابته علينا سبسكرايب لو صار لايك لو صار comment share la waxna laga xasdin marka waan ku dhawaayay naad maasanta waa tahay maanta waxaan ka hadlaynaa falanqeynta saddex horyal oo ah Spain La Liga, Italian Serie A iyo sidoo kale koobka Barclays Premier League oo ah horyalka ugu xiisada badan leh. waxaan ku hormarayaa Sharmarke xalay waxaa dhacday ciyaar aad u xiiso badneed oo u dhaxaysay kooxaha Espanyol iyo Real Madrid. Real ayaa 1-0 ku adkaatay oo hogaankii La Liga ku soo laabatay. isleedahay Real Madrid horyalku way ku guuleysan kartaa aad iyo aad u guuleysan doontaa. waa tahay ma la qabtaa arinka Saalax ninkan sida uu sheegay Sharmarke Real wuxuu aaminsan inay horyal ku guuleysan karto ma wala dadka soo horjeeda guuleysan midasaan dheelaan fikirkiisa soo waa tahay su'aasha xigta waxay tahay horyalkii Premier League ayaa asagana gabagaba ku dhow wuxuu marayaa heer aad u xiisad badan waxa u cad ama loo caleema saaray kooxda kubadda cagta Liverpool iyadoo Klopp uu sheegay inuu mudan yahay inta loo dhiso sidoo kale wuxuu sheegay in kooxo fara badan uu keenay garoonka Anfield sidee tu aragtaa ku guuleysiga Liverpool ay horyalka Premier League ku guuleysanayso wallahi midaas Liverpool guuleysan doontaa way ku guuleysatay maxaad dareemaysaa maadaama Liverpool loo caleema saaray koobkii horyalka Premier League taasna aniga waa Liverpool guuleysanaysa ma misdoo wala marka waxaad soo goonitas waa tahay su'aasha xigta adiga ayaa iskale yaad u saadaali lahayd xidiga ugu wanaagsan Premier League waa Aubameyang, Mohamed Salah iyo sidoo kale xidiga lagu magacaabo Kevin De Bruyne. Mohamed Salah la saadaali lahayd waa tahay adiga ahaan yaad u saadaali lahayd De Bruyne waa tahay asxaabta gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay. waxaan naga daawanaysaan YouTube channel-ka Korea Atoshare waxaad nala socoteen barnaamijka falanqeynta ciyaaraha oo aan maanta idinla socodsiinaya anigoo ah Atoshare. barnaamijka waxaa ilaga qayb galay Saalax Arteta iyo Sharmarke oo iyagana ila falanqeynay kulamada xiisaha badnaa ee laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub. sidoo kale dhanka kaamirada waxaa ka haweenayay Jama oo asagana ah cameraman aad caan ah. fadlan haddii aad nagu cusub tahay kanalka like share comment waxa dhan isku daraa mar jumla leh cameraman Jama Love Production intaan dib kulmi doono waa Atoshare, Sharmarke, Saalax Arteta iyo Jama Love oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo Sports Somal.